القليل waa dugsi fac weyn oo saaxada waxbarashada dalka ku soo biiray dabyaaqadii sagaashameeyadii wuxuuna ka mid yahay dugsiyada la aasaasay burburkii dalka kadib waxaana hirgeliyay aqoon-yahano garashadooda ay tustay aafada jahliga uu ku hayo bulshada Soomaaliyeed waxayna u gurmadeen jiilkii xilligaasi oo wajahayay caqabado kala duwan oo jahligu qayb uu ka ahaa dugsiga oo hadda shaqeeya ayaa ka kooban heerarka kala ah hoose dhexe iyo sare wuxuuna door muhiim ah ka qaataa in uu soo saaro kumanaan arday ah sanad waliba asagoo adeegsanaya manhaj sareeya oo la jaan qaadaya wacyiga dalka ee xagga waxbarashada iyo dunida inteeda kale ardayda ka qalin bedelata dugsiga ayaa intooda badan waxa ay hormuud u yihiin kana dhex muuqdaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxayna ka qayb yihiin dhammaan horumarka dalka ka socda dhinacyada waxbarashada wax soo saarka dhaqaalaha caafimaadka iyo siyaasadda anigoo ah Maxamed Axmed Mire ahna mid kamid ah oo ka qalin jabiyay dugsiga hadda aan dhex taaganahay Al-Khaliil 2005-2006 oo aan aad ugu faraxsanahay maanta inaan soo booqdo iskuulkaygii aan ku abtirsanayay dhinaca tacliinta waxbarashada caadiga ah ee dugsiga ardaydu ay ka helaan waxa u sii dheer in lagu dhiirigeliyo in ay la yimaadaan hal abuur joogto ah iyo in la siiyo talooyin iyo tababaro practical ah oo ay kaga sareeyaan ardayda dhigooda ah waxaan kamid ahay ardayda wax ka barta dugsiga hoose dhexe sare Al-Khaliil waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamuliinta iyo macallimiinta waxaan kamid ahay ardayda wax ka barta dugsiga hoose dhexe sare Al-Khaliil waxaan ku faraxsanahay waxbarashada tayada aan ka qaato Al-Khaliil maamulka dugsiga Al-Khaliil waxa uu ardayda u dejiyay istiraatiijiyooyin ay kula xisaabtamaan ayna ku wada shaqeeyaan waalidiinta iyo maamulka dugsiga wada shaqeynta wanaagsan ee labada dhinac ayaa dhabaha u xaartay in ay waalidiinta ay u maqsuudaan shaqada dugsiga uu u hayo ummadda Soomaaliyeed waxaan ka tirsanahay maamooyinka hooyooyinka ardayda u dhigato iskuulka Al-Khaliil oo maxaa tiraahdaa xaafadda ku yaala xawar jadiid qaybteeda simad waa fiican waa waxbarasho tayo leh ayuu leeyahay iskoolku waa sanadihii dambe waxaa aad loo casriyeeyay habka waxbarasho ee dugsiga waxaana xilligan ka howlgala barayaal heesta shahaadooyin sarsare sida bachelor iyo master degree taasi waxa ay tub u noqotay dhabaha wanaagsan ee lagu horumarinayo jiilka maanta oo ay tahay in muhiimadooda la siiyo in ay helaan waxbarasho iyo taageero joogto ah oo dhanka horumarkooda ah sida hadda idinkaga muuqata fasalada waxa bilowday sida iskuulka ku soo aragteen sanad dugsiyeedkii 2019-2020 bishan kowdeedii insha Allah waxaan rajaynaynaa si wanaagsan inaan uga qayb qaadano ardadeennana ay sheer gareeyaan howlaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Al-Khaliil uu bulshada u hayo waa kuwo joogto ah oo mudan in lagu hambaliyeeyo looguna dhiirigeliyo howlwadeennada dugsiga Farax Cabdi warbaahinta midnimo Muqdisho